Puntland ayaa lagu soo waramayaa in ay xilligan ku gubanayso meel u dhow halka ay doonyaha iyo maraakiibta ay ku soo xirtaan ee dekada magaalada Boosaaso. Doonidan ayaa ku soo jeeday dekada Boosaaso sirarka looga dajiyo, balse inta aysan soo gaarin halka ay doonaysay waxa uu dab ku qabsaday meel u dhow dekada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. dad goobjoogayaal oo ku sugan magaalada Boosaaso oo ay la xidhiidhay idaacadda Kulmiye ayaa u xaqiijiyay jiritaanka wararka sheegaya doonida ku gubanayso meel u dhow dekada magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Ha yeeshee ganacsatada u rarnay doonida imika gubanaysa ayaa bilaabay gurmad iyo dadaal degdeg ah oo ay ku doonayaan qaabkii ay u badbaadin lahaayeen hantida saaran doontaasi. wararka ayaa sheegaya in shixnado kala duwan oo wadamada qaliijka carabta ay ka keensadeen ganacsatada ka howlgasha deegaanada Puntland ay saaran tahay doonidaasi, balse imika ay gubanayso. Ha yeeshee dadaalada lagu badbaadinayo shixnadaha saaran doonidaasi imika ay ka socdaan gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Ha yeeshee tallaabada gubniinta doontan oo aan la ogeyn waxa sababay ilaa iyo imika, balse mas'uuliyiinta u raran ganacsiga doontaasi saaran ayaa la filayaa in ay ka hadlaan khasaaraha ka dhashay gubashada doontaasi.